jimciyadda khayriga masaakiin ayaa waxay habeennimadii xalay munaasabad ku qabteen magaalada Berbera taasi oo ay ku soo bandhigayeen waxqabadkooda sanadkii tagay 2019. jimciyadda masaakiin ayaa waxay ka shaqaysaa arrimaha khayriga waxayna caawisaa dadka danyarta iyo agoomaha. waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Saaxil, kuwa degmada Berbera, ganacsato, aqoon-yahano, culimo, salaadiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan. waxaana ugu horeyntiba halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka jimciyadda masaakiin, waxayna si qoto dheer uga warameen marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay jimciyaddu. masaakiin waxa la aasaasay 2018 bishii koowaad 15 waxaana aasaasay hablo reer Berbera. waxa loo aasaasay iyo hadaaftii loo aasaasayna waxa kamid ahaa waxay ahaayeen in la caawiyo dadka baahan, in la iska warhayo oo dadku ay ka warhayaan, dadka wax haysta ay ka warhayaan dadkooda baahan. waxyaalihii nagu kalifay inaan hore u sii socono waxa kamid ah markii aanu soo aragnay waxyaabo aad nooga qiiri galiyay markii aan ku jirnay inaan xaafadaha soo dhex marno. waxa kamid ah waxyaalahan soo aragnay hooyo haysata awlaad ooyeysa. markaan hooyadii weydiinay waxay awlaad loo ooyeysan waxay tiri awlaadu waxay cunaan uma hayo. waxa jirtay oo kale oo soo aragnay ciyaal yar oo biyo ku dhuuqay rooli. subxaanallah, inagana xaafadaheena waxa laga yaabaa qaar badan inay awlaadooda ilaahaan oo mateedka ka xiran oo dawo loo soo iibiyo. ahdaafta iyo ujeedooyinka masaakiin loo aasaasayna waxa kamid ah in la isku xiro bulshada ka wax haysta la tuso ka baahan, in aynu dhisno dadka danyarta iyo agoomahaba guriyo iyo madarasado iyo ceelal biyaaba. tirada qoysaska maanta masaakiin gacanta ku hayso waa 60 qoys. waxaanu aragnay intaanu dhex maraynay dad badan oo yiri waligii ma anaga waxna loo keenayba ma waanu arag meel wax lagu bixinayo intaysa siisaa waa inta istaqaanaa. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay ganacsato, waxgarad, culimo iyo marti sharaf kale oo tiro badan. waxayna goobtaasi kaga dhawaaqeen inay noqonayaan qaadhaan bixiyayaal. waxayna sidoo kale ay bogaadiyeen jimciyaddani masaakiin. tala waxaan anigu ku dhawaaqaya aan ku caawinayaa jimciyadda nooha u fiican hablaha umanaya noohana caawa ku ballanqaayan insha Allah inaan iibiyo insha Allah. runtii waxaan ballan qaadayaa caawa laga bilaabo aniguna inaan ka tirsanahay jimciyadda masaakiin. marka ummadda waxaan ku buurinayaa inay iyaguna ka qayb qaataan, waxay jecel yihiin waliba ay bixiyaan. boqolka u horeeya dollar aniga diray dadkuna ka qayb gala insha Allah. lacagta ugu horeysana waa bixinayaa. boqolka bixiyay muxuu ahaa suldaanku bilaabay onkii labaad ahay. waxaan kaloo sheegayaa in yarun baan sheegaya waxa weeye haddaynu doonayno inaynu wax qabsano ha u fakerina inaynu $100 iyo $30 iyo $50 iyo lacag ciidda ka badan maskaxdaada inay ku soo dhacdo maaha. carruur yar baan haystaa anigoo carruur yar haysto madax xanuunsanayso oo jaamal ayaa iska dhex marayo oo dibadda naloo tuuray oo bayhoof iyo balanbalba aan waxba nooga dhinayn ayaanu hablaha ilaahay dartii u kulannay. wayna gacan qabteen, allaha ka farxiyo, aad bay nooga farxiyeen, wayna gacan qabteen. isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil, isuduwaha wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee gobolka Saaxil, iyo agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada Berbera iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay si weyn u bogaadiyeen jimciyaddani masaakiin. waxayna sheegeen in ay kala shaqayn doonaan arrimahani khayriga ah ee ay wada jimciyaddu. koobaad waxaan u ducaynayaa hablaha masaakiin oo runtii fikirka ay xambaarsan yihiin uu yahay fikir mucjiso ah. way yar tahay inaan intay jawaan qaadato magaalada Berbera oo kulul la dhex wareegto galaan bariis iyo galaan muxuu ahaayay sonkor ku shubaysa. annagu ka dawlad hoose ahaan runtii shiraanu yeelanay annagu agaasimayaal ahaan maayarka xogaya waxaanu go'aaminay inaanan kaba hadline mushaharkaanu qaadano qasnadana lagaga reebo. bal qolyaha hore ay sii hayeen qayb kamid ah inaanu ka qaadano, qaybna aanu shaqaalaysiino ciddii xoogooda ku shaqaysan karaysa aanu ka shaqaalaysiino dawladda hoose. wixii marka iyagu ganacsi yar gacanta ku haysta ee wax rogrogi karayana maalgelin yar loo sameeyo. hablo fara badan oo markaan macalinka ahaa during early teaching period xilligii waxbarashada asaasiga ahaa aan ka mid ahaa argay soo tarbiyadeeyay. runtii hablihii markaan iskuulka joogay price-ka ahaa ayaa caawa muassasadan khayriga ah ee masaakiin runtii soo aasaasay. aad baan ugu faraxsanahay. wali waxaan rajaynayaa noohada Yuusuf bixiyay
marka la shaqlayo ciwaankeeda boorka lagu shaqeeyana insha Allah taala anigu bixiyo rag badan baa yiri waxaan ka tirsanay masaakiin anigu masaakiin horaan uga tirsanaa marka caaw gali maayo cid kasta oo ku soo biirasana waan ku soo dhaweynaya waxaan leeyahay soo dhawaada dhamaatana $100 ugu horeysa bixinaya waxaan kaloo ballan qaadayaa haddii la yiraahdo bilaha Ramadaan waxbaan soo mara kulli cadad kasta leeyihiin bisha Ramadaan haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo oo amaanadu gaadho bisha Ramadaan wixii soo gaadha waan ballan qaadayaa markaan ugu yarahay inaan 10% ka bixiyo haday raashinta iyo haday lacagta haday wax kale tahay iyo haday dhar tahayba waxaan aad ugu duceynayaa run ahaantii caawa in badan bay habluhu ka hadleen Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Badda Cas Berbera.